mas-uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa casho sharaf ugu sameeyay Hotel Mansour kooxdii kubadda cagta ee ka timid dalka Kenya iyo kooxdii ku ciyaarayay magaca dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ee shalay ciyaartu ku dhex martay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. Munaasabadda casho sharafta ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka caasimadda Hargeysa, safiir ku-xigeenka dalka Kenya u fadhiya Somaliland, maayir ku-xigeenka dowladda hoose, xogayaha dowladda hoose, mas'uuliyiin xilan hore soo qabtay iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko iyo maayir ku-xigeenka dowladda hoose Cabdicasiis Cagaweyne, waxaanay halkaasi kelmado dhiirigelin uga jeediyeen ciyaartoydii labada kooxood. aad iyo aad baa tiimkayga halkan ugu cambalyeynaya, waan ku faraxsannahay runtii, waxaanay taasi caddaynaysaa inay wadamada kale ku yimaadaan guusha Somaliland ka jirta ama nabadda ka jirta. waxaan ku rajo weynahay inay wadamada kale geeskuna iman doonaan, inay marka dambana ama iyaguna Yurub tagi doonaan, horeba u tageen Yurubta bari, inay Yurubta kale galbeedna ay tagi doonaan oo nu abaabuli doono kooxdeedu inay tagaan halka hadii ilaahayda oo halkaana ay ku soo ciyaaraan. waxaanan ku hambalyeenayaa kooxdeeda, waan ku rajo weynahay kooxda inoo timid iyo kooxda dowladda hoose Hargeysa. waan u mahadnaqayaa ciyaartii quruxda badnayd ee maanta la ciyaaray, ciyaartaasi oo noqonaysa ciyaar taariikhi ah inay kooxda inoo timaado Sinda United kooxda dowladda hoose Hargeysa wada ciyaaraan waxa weeye kulan caalami iyo taariikhi bay noo noqonayaan. mar labaadna waxaan u sii mahadnaqayaa macalinka iyo kooxda dowladda hoose oo guul taariikhi ah caawa soo hoysay. dhanka kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirkii hore ee cadaaladda barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex iyo xildhibaano. ciyaartii maanta dhacday guushu ay ku raacday naadiga dowladda hoose, runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa naadiga dowladda hoose. ciyaar aad iyo aad qurux badan bay soo bandhigeen, taasi waxay muujinaysay maanta ciyaarta quruxda badan ay soo dhigeen in kabtankooda Master Diridhaba uu tacab badan geliyay, runtiina naadi aad iyo aad loogu tabcay bay ka muuqatay. wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iskaashigooda gaar ahaan xafiiskeena Nairobi ay hogaaminayaan Baashe iyo Sharmaake iyo tiimka dhami iyo waxaan leenahay iyagana waa ku mahadsantihiin qaabka u soo qabanqaabiseen ee aan kala qayb qaadanay. saddexaadna waxaan mahadnaqaynaa Jefferson Group oo runtii ku soo dhiiraday in ay Somaliland oo cadaalad darro ka haysatay markii hore oo ciyaaraheedu ay xanibnaayeen oo ay international ka qayb gali waayeen in ay dalkeena ayna walaalahanaya Kenya kamanigaasi iyo tiimkiisu ay ku soo dhiiradeen inay soo dadaalaan yimaadaan. aad baan idinka mahadnaqaynaa. dhankooda iyaguna waxaa halkaasi uga mahadnaqay maamulka dowladda hoose, xubno ka mid ah ciyaartoydii ka timid dalka Kenya iyo sarkaal sare oo ka tirsan shirkaddii soo maalgelisay ciyaartoydaasi ka timid dalka Kenya. ugu dambeyntii munaasabadaasi waxaa hadalka iska daba qaatay safiir ku-xigeenka waddanka Kenya u fadhiya Somaliland Ambassador Sharmaarke Axmed Maxamed Geele iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland mudane Maxamed Cabdilaahi Siciid Khaawi, waxaanay halkaasi kaga warbixiyeen ahmiyadda ay u soo qabanqaabiyeen ciyaartani dhex martay kooxda ku ciyaaraysa magaca dowladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo kooxda ka timid dalka Kenya. waxaan uga mahadnaqayaa, waxaan uga faa'iideysanayaa ambassador ama safiiradii ka soo shaqeeya safiir Sharmaake iyo Baashe oo runtii tacab fara badan geliyay. ciyaar kuma imanin naadigan iyo wafdigan la socday ganacsatada ee dalka Somaliland, runtii waqti iyo dadaal dheer baa la geliyay. iyagana uga mahadceliyay wasaaradda arrimaha dibadda tacabka fara badan ay geliyeen iyo runtii isdhexgalka bulshada labada dal ee Kenya iyo Somaliland. dhammaanteen baa guuleysanay, waxaan ku guuleysanay Somaliland inaynu ka dhigno dal nabdoon oo wanaagsan oo dunida laga yaqaano oo la imaado oo la ciyaaro saaxiibtinimo iyo wanaag oo dhaxmaro. dhammaanteen baa guuleysanay. kooxda badisay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ciyaartii wanaagsaneed maanta ciyaareen. kooxda Kenya ee isku soo hadlaysay ee u timid Somaliland aad baan u bogaadinayaa. dhacdooyinka noocan oo kale waxay kor u qaadaan xidhiidhada iyo isdhexgalka iyo inaad hesho saaxiibo caalami oo fariintaada qaada. Axmed Nuur Ciise, Telefishinka Bulsho, Hargeysa.